waa mar kale iyo magaalo kale. Magaaladan ayaan u haysan jiray inay tahay magaalo yar, laakiin markan imid ayay iga yaabisay. Waxaan gadaal ka ogaaday in ay tahay magaalo weyn. naqshadiisa waxa lagu sawiray diyaarad helicopter taraafika u baahan tahay bajaajtu si loo kala hadlo. Waxaan doonaynaa meel aan cambaabur wanaagsan ka soo cunno. Cambaabur weli cambaabulkii baan raadinaa. waxaan loo tilmaamay hodeel la yidhaaho Nuure. marka kii hore carabtu waan ka soo weynay. carabtu waxaa ma yaqaanaanba. waxaa la yidhaha cambaabulka Soomaalidu ma samaysa. kiina tilmaamo u naqalday markaa. السلام عليكم أصحابتا ملك كنتم شفتوا سلامنا. halkeen joognaa maanta kali wax naga filanaysan meel cusub inaan joogno. meeshaasaan joognaa talo ma jijiga joognaa talo halkeen joognaa talo halkeen joognaa ma Muqdisho joognaa kalgacay joognaa. waadida xagga lagu wato talo bajaajta ama tigta meesha ay ku badan tahay in joogno. asxaabta ba ka fikira. asxaabta waxaan ka soo salaamanaa maanta aniga iyo Dalmar soo sheega magaalada waxaan ka soo salaamanaa caasimadda Awdal Boorama. tiigu saaksaas uu eegyahay saacadu waxa weeyaan sida idin sheegi jiray markasta cabaaro 9 iyo dheeraad. xagan roodi baa lagu binayaa. marka roodida waa roodi moofo. marka waa roodi moofo waaweyn. waxaa la moodaa roodida leedha. waxaan dhex joognaa suuqa weyn ee magaalada Boorama. sidoo kale waxaan raadinaynaa in aan quraac helno. waa 9 dheeraad xil daman soo kacnay. marka halkan Boorama waxay caan ku tahay cambaaburka in lagu quraacdo. marka cambaabur baan raadinaynaa. say kula tahay mehelinaa intaan habsanahay laakiin waa suurtagal inaan helno inta karaankeena aan dadaalna. we're gonna try it after waxa weeyaan waqti dheer. halkan daabshiil baan ka arkayaa kambaniyada garanayo Star Mobile Electronics A+ meheradaha magaalada Hargeysa ka furan. xaggan waxa qayboowii kala ka furan. marka meherad badan oo garanayo ayaa loo ruteynaya. السلام عليكم صاحب. قالوا يا بابا بابا ما ما كنا نسمع بابا في حنا laga cuno. بابا في السميد هروب maxaa la yiraahdaa سريبت foos ka sameynaa. marka waxay sariibada hore u galaa sariibada intii noo jirto badanka دون قياسنا كله كله waxaan filayaa inay aaga hore wadada meedgina sidii di kale waxay leedahay reeburamay loo sheegay siribada cagirina way halkan waxa weeyaan wow waa meel studio. marka waxaan maleynayaa ninkaas sawirkiisa waxaan ku arkay magaalada Hargeysa inay branch kale ku leeyihiin magaalada Hargeysa filayaa. magaalada san maan mooday inay weyn tahay magaalada laakiin aad iyo aad u weyn tahay magaalada Boorama. sidaan moodanay way ka weyn tahay. ganacsiguna aad iyo aad u socda si xawliya. meherado badan oo businesska halkan u kala duwan yahay. waxaad arkaysaa dukaamadii elektroniga. waxaad arkaysaa dadkii ku iibinayay wadooyinka dhexdeeda. bajaajtii. marka ganacsiyada kala duwan yihiin bartan waa different. marka waa maaxla hada almandar waa maaxla waa maaxla أحمد waxaan filayaa inaynu soo gaarnay sariibadii. marka waa suurtagal inaynu ku helno cabab. imika waxaan soo gaarnay halkan. waxaad helaysaa dad badan oo waxaan malaynayaa waa meesha ugu badan ay dadku ku badan yihiin. waxa weeyaan santarkii suuqa. dad badan baa halkan ku ganacsanaya weliba gaar ahaan ganacsiga yaryar.
marka alaabo badan baa barta lagu soo bandhigayaa waxaad arkaysaa kabihii waxaad arkaysaa khudaartii waxaad arkaysaa hilibkii waxaad arkaysaa تراكتي وباهن تاي بجاجتو سي لو كلا هلو تراكتي بجاجتو waxaa ku dhacay maanta marka saan baa ka jira meesha halkan waxa weeyaan meeshii siribada marka dalab badan baa ka jira oo xagga bajaajta ah suuqii ka baxnay suuqii ma laga baxday la hareen keeli doonaa marka halkan waxay soo ururti kalluunka xaggan waxaad ka helaysaa kalluunkii samak waa suuqii kalluunka halka waxaad arkaysaa bismillaah kalluun center good fish حاجة أنا حاجة حويان سوقي كلونكا. أصحيح. عمبابو ميلودي ما هردو نكسينو. ميلودي بدي. يا. حاجة تيس كده أصله حويان ماشي يمني. أو تيف كده. مرة يمني. كي يمني أنت سمع. ما سنت إيه شكرا. حاسس كده ورجع. أنا كل سريبة تويدا. سحبته حنولات المعمي رestaurant كلاي ولا راح أصله. sidoo kale hotelka waxa ku yaala hotel kale oo Yemen leedahay صح marka insha Allah hotelkaas inta doonaa waan ila wadaagi doonaa qaabka ay ambaabulka loo cuno halkan ama qaabku uu eegyahay insha Allah markaan nala socdo wanaagsan waan soo gaarnay hotelkii madcam waxa la yiraahdaa madcam Saciid Oslo hotelna waa la yiraahdaa Yemen Saciid iyo Oslo hotel labadaba la yiraahdaa وما أحلى هذا المنظر يا أحبابي مركا إن شاء الله تعالوا بينا تعالوا مركا إن شاء الله هو كم بنتعمل دونا أو در قرح بدن لا أنا تقرأ عنه هكذا نصعنا إيش اللي يرى شيء قرينه أول شيء نسكوته أول في عمبا ودان هذا اللي يقول فيك مركا هو ده كان حنتيجي دونا إن شاء الله بورين تيجي دونا inagoo cambaabul insha Allah tijaabin doona hotelka carabta waan ka soo weynay way garan waayeen marka niman kale noo sheegay in halkan uu jiro hotel ay guure marka cunto wadaniga iibiya aan geel saafi iibiya markaan soo eegna aan geelka saafiga iyo cuntada wadaniga asxaabta waxa soo gaarnay guure waa cafe marka cambaabur baa saako dhan raadinay oo nala raadinayseen ugu dambeyntii meherada baan ka helnay marka insha Allah waxaan eegi doonaa aan isla tijaabin doonaa cambaburkaas oo dhamayo insha Allah hotelkan gudaha u gali doonaa sidoo kale waxaan maqlay caagadan way mooqaraysan tahay caagad caadi lagu shubay ma aha waa warshada moor weeyaan adiga furanaya caanaha geela ma caagad qof kale ku soo cabay biyo maaha أحمد أوتي وحنا لنا هاي المقران دونا مخاص عطا وسعود ونكسن برنامج كيني مقالة يكتبون برنامج نعمل دوا ambaburkii waa kan waa adigu waa laha kala duwan fiyaa garanaya kan intuu soo qori doona laakiin la xubeela tahay marka caano dhanaan baa lagu cunayaa iyo malab sidoo kale duqus hawshada qofka soo hordoonaya adigu laakiin waxa weeyaan ajibisay kan lay kuwa hawshada malabka iyo caanaha isku cunayo صار عادي oo dhanaan yar oo sameynaysa ama waxa la udgoon oo sameynaysa sidoo kale green oo fresh ah asxaabta aad baan idin salaamaya waxaan joognaa jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama jaamacaddu dhulka ay ku fadhidaa waa dhul aad iyo aad weyn oo qadiimi ah oo
halkan galaas buu ku jiraa. marka sidoo kale arrinka cajiibka ah ee jaamacaddan ku caan ka tahay waxa weeyaan in meel kasta ay dhir laga beeray oonad arkayn meel iska bannaan. dhirtii lagu yaqaanay dhulka Soomaalida iyo dhir kala badan oo qurux badan oo sida falaawarada iyo geedaha loogu talagalay meelaha in lagu qurxiyo. marka waa mahlaha jaw. marka insha Allah jaamacadda meelo badan baan soo arkay, meelo badanna waan la arag weli. marka waxaan isku dayi doonaa inaan dhex maro ila socda. asxaabta weli waxaan ku sugannahay jaamacaddii Amuud, mid ka mid ah jaamacadaha ugu caansan dhulalka Soomaaliyeed. jaamacaddan waxay kaga duwan tahay jaamacadaha kale dalka ku yaala. waxay ku taallaa meel u eg miyi ama meel miyi ah, meel ka baxsan magaalada Boorama. ardaydu halkan kuma dareemayso caajis ama sawaxan buuqi magaalada, waa meel laga soo saaray. sidoo kale beero badan baa halkan ku yaala. jaamacadda laftarkeeda waxaa ku xeersan sidoo kale buuro, waxaa ku xeersan doox, waxyaabo badan oo uu ardaygu aanu ku dareemaynin caajis iyo boring ayaa meeshan ka jira. jawigeedu aad iyo aad buu qurux badan yahay. waa markii koowaad aan usoo dalxiis tago meeshan. wamaa axlaa. halkan aynu joognaa waxaa ku qoran in la aasaasay 1952 ama la dhagax dhigay. marka waa waqti aad iyo aad u badan. jaamacadda dhismaheedu badankiisa wuxuu ka samaysan yahay dhagax buu ka samaysan yahay. rinjiga madoowna waa la dhex mariyey. halkan waa qaybtii administrationka. galaas kasta lambar buu leeyahay, xafiis kasta sign buu leeyahay iyo calaamad, iyo wuxuu qaabilsan yahay ayaa ku dhegsan. halkanna waa qayb kale oo ka mid ah qaybaha jaamacadda. meeshan sidoo kale waxaa ku taala taalada jaamacadda Amuud. dhismahan waa dhismaha maamulka ayaan jeclahay. meel kasta calaamad baa ku taala iyo wuxuu dhismahan ka matalayo waxyaabahaasaa ku yaala. marka halkaas maad ka akhrisanaysaa. halkaas waa xafiiska maamulaha ama guddoomiyaha jaamacadda. sidoo kale masaajid baa ku yaala goobtan. sidoo kale goobtan waxaa ah taalada shimbir weyn baa meesha joogta. sidoo kale halkan waxaa ah taalada jaamacadda. halkan oo kale waxaa loogu talagalay markay ardaydu qalin jabinayso in ay isku sawiraan. marka ardaydii hore ee baxday 2023gii class of 2023 ayaa halkan taalada loo sameeyey. waxaa loo sameeyey broadcast. sidoo kale taalada jaamacadda Amuud waa tan weeyaan. halkan waxaa ka mid tahay meelaha ugu caansan ay dadku soo sawiraan. aniga laftarkayga isku sawiraya. baskana waxa weeyaan basaska jaamacaddu ay leedahay oo ardayda qaada. taaladu aniga isku sawiray. waxay iga sheekaan maayo maalin dambe. safarkeennii baan ku guda jirnaa. Boorama ka nimid. waxaan u soconnaa deegaanka Baki iyo Ruqi, beeraha durdurka. marka dhexdii baan kusii jirnaa. jawigan qurux badan baan aragnay oo jawigii buurihii Sheekh aan ka dhicin. weliba dhirtan cagaarka ama greenka idiin muuqata waxa weeyaan sugsug weeyaan. sugsugtii xooluhu cunayay ee Soomaali lagu yaqaanay weeyaan. waxaa akhtarka arkaysan buuraha ka dul baxay. geed kale ma jiro meeshan. uu ku yar yahay ama hadduu jiro geedkan wuxuu u badan yahay sugsug buu u badan yahay. mankii bixiyey, ubaxii bixiyey. marka insha Allah safarkeena halkaasaan usii socon doonaa. weli waxaan ku jirnaa dowgii buuraha loo sii marayo Ruqi. marka halkani waa sidii dowgii Sheekh oo kale ama dowga cad oo kale. saasad u leexleexanaysaa. buurahaasaan ka dhex baxnay. haddana waan sii soconnaa. marka halkani waxa weeyaan meel aan ka dhicin buuraha Sheekh. wadooyinku saas u leexleexanayaan. marna buur baa laga degayaa, mar buur baa la korayaa, mar doox baa laga degayaa, mar laag baa la dul marayaa.
marka meeshan ku soo dalxiisa maanta waxaan joognaa gobolka Awdal waxaan ku soconaa dhinaca iyo Baki marka waxaan ku sugannahay hadda Bakida yar wadadayadii ama jidkeygii Bakida weyn ayaan u soconaa wadadayadii ama jidkeygii Bakida weyn ayaan ku jirnaa marka waxaan aragnay inta dhexe ku jirnay geedkan oo cajiiba oo aad iyo aad u weyn geed deebloo baan maqal jirteen inuu weyn yahay dhirta ugu waaweyn laakiin geedkana kama dhaco inuu isagii ay isku nooc yihiin wallahu a'lam laakiin waa geed aad iyo aad u weyn jiridiisu ay dhowr mitir tahay وأركز على مركز الرئيس تاعي أنت نقولي ولا أركز أنت نقولي ولا أركز marka geedkan magaciisa la soo sheego taariikhdiisana laga soo waramo insha Allah hadii aan cid ka horeysan karo xaggan magatuulada degan waan ka horeysan doonaa soo sheega maanta waxaan joognaa Baki walaalkan Xasan baa inala jooga Xasan naga waran taariikhda Baki iyo waxyaabaha ay kaga duwan tahay magaalooyin kale waxay ahayd aasaaskeyga hore gobolka Awdal meeshii lagu bixiyay aye halkan ma ahayn degmada ee gobolka Awdal 1980 iyo shantii gobolka Awdal maalintii la magacaabay bartiyaha madaxweyne Maxamed Siyaad Barre dhagax dhigay weeyaan ma sha Allah waxa ka dhisan guriyihii kuwii martida kii bara saabka kii hawlaha guud kii wasiirka kii wasiirka arrimaha gudaha kii maxkamadda degmada gobolka aasaaskiisii dhismihiisii halkan buu ahaa bartii la dhagax dhigay marka kadib xuliyadii bara saabka gobolka halkan buu joogayay maayirka gobolka halkan buu joogi jiray gobolkana halkan bay halkii laga xukumi jiray loogu talagal markii dhismihiisa la bixiyay laga bixiyay laga dhisay naqshadiisa waxa lagu sawiray diyaarad helicopter waana arki kartaa jidadkiisu waxa u yar 20 oo jidada weyn weeyaan 20 mitir jidka ugu yar waa 20 jidka imkaan fadhinay guriga iyo guriga u dhaxeeya waa 20 soddon baa jira 70 mitir baa inta wadada guriyaha u dhaxaysa ayaa 20 mitir oo planning fiican weeyaan waa naqshadii ugu fiicnayd ee caasimad loo dhisi jiray ma sha Allah naqshadeedu waa 15 wana qaanaa jidadkii magaalada qaar ba 15 iyo 10 bay yihiin bada meelaha qaar laakiin waad arki kartaan degmada Baki jidka ugu yar waa 20 ka joogna ugu yar ma arkayso ugu weyn kuwa kale waa 30 jid waxa jira la yiraahdo 70 mitir jira oo loogu talagalay highway 70 mitir halkaas ku yaala halka beeraha ka waran iyo durdurada iyo biyaha iyo hawlaha kale horta gobolka marka la yiraahdo ama Soomaaliland marka la yiraahdo meeshan waxa la oran karaa cidii aragtay ama aqoon leh waa meesha ugu khayraadka badan leh biyaheedu waa biyo ramsiye biyaha gurgura ma waa biyo maguuraana ceelal maguuraana leedahay waana meesha kaliya hele beerihii xoolihii magaaladii laguna bixi kara maanta xataa hadii maanta wadamadu isbedel dhaco horumar iyo imaado baxnabi xadaarad badan dhaqaalaha meesha kaliya tee biyaha wax soo saar leh biyo wax lagu soo bixi karo laga heli karo weeyaan digirta hadii laga beerto arab khudra waa laga beeraa oo qaybtii masnadina way leedahay qaybtii xareedina way leedahay khudaar badan baa ka soo go'do la geeyo magaalooyinka Soomaaliland Boorama Burco ilaa cambaha ugu badan ilaa Burco waa la geeyaa waa la geeyaa ma sha Allah ugu badan 1900 iyo waxaan halkan ku tartanay annaga iyo xamar saylada Djibouti waxaan ku tartanay 1900 iyo may 2020 yaan tartan ku galay anaga iyo 4 sano ka hor 2020 ما لبدي كل شيء تونكي إلا استيسرن كار حاجة خضارته جيبوتي سوق جيبوتي وحاي سنجرتي حمر حب كوكو بدن كيماده حمر كيماده wuxuu ka baxaa meesha la yiraahdo afkooye ilaa iyo beledweyn xaabkaas oo qiimo jaban ku imanaya baan anaguna halkan ka beernay suuq Hargeysa Djibouti naga aysan jirin halka tartan baa meesha ka yimid maadaama idinku meel fog buu ka imanaya xamarka ka imanaya boqol gaari baan halkan ka wada rarnay maalin quraato qiimaha aan jibino noolka u saar suuqa sidii baan xamarka ka saar waxa kan badan baa ka soo gaa marka ugu badan gobolka oo dalka bixi jiray ayaa ka soo baxay wali xilibka roobka la beeraa Soomaaliya rabadaanta waxaan joognaa dooxa weyn ruqi dooxii baan ku dhex sugannahay marka dooxana ma durdurkan
guye jilaal biyuhu way ka socdaan marka opa meel baa lugtay gashay meel baa lugtay qustay opa kabahaygii way ku meel qusay ay halkaas ay la degtay halka meesha waa wada biyo halka biyo halkan fadhiya halka horena biyihii baa ka shalwanaya marka halka hore intagi doonaa kabahaygii way qoyeen way ku daayeen waqti bay qaadanaysaa inay qalalaan meelaha dhan waa dhul jilicsan marka waxaan soo tusayaa biyaha xagga hore ay ku badan yihiin waxaan haddii ama qulqulkan xagga hore loo socdo meelo badan oo biyo badan fadhiyaan baa jira laakiin xaggan waxaan joognaa tuuladii ruqi baan joognaa wata halkan ka muuqata masaajidkii iyo guryihiiba marka insha allah halkan waxay nagu xeersan ama ay nagu wareegaysan beero badan halkanna waa kan biyihii oo qulqulaya marka beerahan dalag badan baa ka soo go'a oo kala duwan ما شاء الله شوف كان مرمرنا بيوي بدينين والمروي يريهين ما شاء الله مرمر بيو بديني سما ومرنا ويرين كوي يجي ساق ناس على احمد حسن يا ما شاء الله وكا يمكن نمع فددا حاجه كسب بلامه يا ما مغيسه حسن وش السر فوق كسب بلامه حاجه كو بيغان تلو وفوق اريد الرقم ما بور بكسب حيان بيو بور بكسب ما شاء الله بيها ضدركا ايان عبي دونا ما شاء الله بسم الله halkaas waa durdurkii halkana dooxa qarkiisa dhagxaantan baa lagu sameeyay suuna dooxu u fidin marka halka waxa ku yaala geed weyn geedkaas waa geed xamara marka xamar badan baa dushaan ka arkaya marka waxaan doonayaa inaan geedka intuso xamartaan soo cuno bar ka soo goosto ayaa rabaa marka ila socda doonaya meel yar fudud aan ka kori karo xagan baa u dhowedahay inay fududahay xagan inta ku fadhiisto ayaan saas ku kaxaynay ka geedka waa geedkan محلى هذا المنظر يا أحبابي جيتك وجيت كان حمر با كنت هلا جيت حمرة تا حمرتي وطن دول كيس كتر هلا لا أركسانين كلا والله أعلم حمرتي وطن جيت كان سيدو دني هاي geed weyn xamartuna gebigiisa way ku taala weliba xamar aad u fiican bay u egtahay oo jilicsan marka ninka muxuu hayay kun geed oo noocan oo kala beera bal qiyaasa intee oo xamara ka soo go'aysa inuu heli karo suuq caalami ma heli karaa xamarta iminka inaga wadankeena kuma samaysano wadamo kale inooga timaadaa iyadoo bacaysan
oo wax lagu daraa hilibka iyo suugada waxyaabo badan baa lagu daraa sharaabya laga sameeyaa marka bal qiyaasa ninka kungeed oo xamar beera company xamarta soo sameeya ama soo saara ma sameyn karaa sidee bay ilaa tahay aniga waxay la tahay waa ganacsi aad iyo aad u fiican oo laga faa'iido karo hadaan Soomaalinahay hatta dhulka Soomaalida hadii kaliya lagu ekeeyo ganacsiga ama ku koobnaado wax badan baa laga faa'iideeyaa shaqaale dad badan waa la shaqaaleysiin karaa oo dhalinyarada Soomaaliyada marka ومحلى hormar iyo waxaan rajeynaa hor socod saabta